بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta bishu waa 26 bishii afraad waana maalin axada saan u arkaysaan baabuurtan labadan baabuur naga dambeeya ee berberi lahayd ayaa maintenance aan ku sameeynay muddo 2 bilood baan nala joogin Hargeysa wixii u baahnaa oo dhan baan u soo qabanay marka hore salaantan ku horeysay gudoomiyaha maxaa la dhahdaa gobolka ku xigeenka mayorka magaalada xogayaha agaasimayaasha waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh programku sidii hore aan ku heshiinay ayuu u socdaa si fiican alxamdulillah uu nagu socdaa baabuurta saan hore ku soo sheegay berberaal hayd labadan gaari maintenance bay u baahdeen marka Hargeysa intaan u geynay baan maintenance ku soo dhameynay marka maanta ayaanu soo celinay hawshii berberana maanta kadib minitan kadibna iyaga ayaa mas'uuliyadda la wareegaya saan mayorka iyo gudoomiyaasha iyo mas'uuliyiinta aan ku heshiinay baabuurtu waxay u baahan yihiin booyado daba socda waana ballan qaadeen in booyada maxaa la dhahaa la iibin doono la keeni doono marka baabuurtani waa baabuur aad u fiican waa baabuur la rabo in la xanaaneeyo sidii lagu talagalay in maxaa la dhahaa maintenance lagu sameeyo maalin walba la safeeyo equipmentkiisa laga warhayo maadaama magaalo xeebeed tahay marka waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inay baabuurtan hawl fiican idin qaban doonaan gudoomiye nagala wareeg baabuurtii markaa alxamdulilah rabbil caalamiin salawaatullaahi wasalaamu calayh jananka ciidanka dadamiska qaranka iyo saraakiisha la socda saraakiisha ciidanka dadamiska qaranka ee berbera jooga gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada mayor ku xigeenka suldaan Axmed Daahir agaasimayaasha dawladda hoose dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar kale runtii farxad bay noo tahay inaanu halkan isugu nimaadno jeneraale inaga oo muddo kooban oo aan 3 bilood ka badnayn wada shaqaynteenu socotay in haddana road mapka iyo qorshahan u dhigan uu sidiisu u soconayo haddaan nahay dawladda hoose iyo guud ahaanba gobolka iyo ciidanka dadamiska qaranka qorshaashii aynu dejisnay sidoo uu socdaa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan kaloo ku faraxsanahay labadan gaari oo ay berberi leedahay oo aynu Hargeysa u soo dirnay si xarunta ciidanka dadamiska qaranka loogu maintain gareeyo in wax badan laga soo qabtay oo maxay tahay in aad iyo aad u yaab leh warbixinta iminka markaan siinaysay waxyaalaha ugu daran biyaha dhufashadooda ugu darnayd in gaari kasta iminka 3 meelood 4 meelood ka dagaalami karayo biyaha maxay tahay ka shubi karayo iyadoo ay fududahay waliba maarta waxyaalaha arrin cajiiba in mashiinadooda iyo wareegyadooda iyo buufintooda laga soo shaqeeyo aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay sida qoraalkii hore aan ugu soo gudbisayna in qorshaha dawladda hoose waxa weeyaan wixii baahi ah ee aad soo qorteen waynu insha Allah ka howlgelinaa iyadana qorshahan ku darsanay alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina wa nabiyina wa xabiibina muxammadin sallallahu alayhi wasallam ilaah baa mahadle marka hore marka labaad waxaan u mahad celinaynaa barasaabka maayirka xogayaha agaasimayaasha iyo ciidanka dabdamiska berbera ee nagu soo dhaweeyay xafaawada iyo wanaaga waxaanu leenahay jazaakumullahu khayral jazaa waxaanu idin raacinaynaa oo kale ramadaan kariim sanadkiisa allah ina gaadhsiiyo aafooyinka iyo waxaa la sheegaya socodana ilaahay ina garab mariyo ummadda islaamka iyo innagaba kolkan u soo noqdo tan iyo danta guud sidaa uu agaasimuhu xogayuhu u sheegay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan Hargeysana in badan baa la xamanayay wixii lagu xamanayaana waxa weeye wax qabad kolka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay halka tallaabada ka sii qaado oo bilicda iyo dabdamiska iyo ummadda ay u khidmeynayaan iyo maanta dadkeenii oo maanta baahidii ay dul fadhiisatay oo dadkii dan yartahay oo idil ay taagan yihiin in laga howlgalo dabdamiska qudhadiisu hawsha uu wadaa tababarkuna wuu socdaa baabuurtan iyo hawshooda kolkaynu ku noqonno sida uu generaalku inoo sheegay gaariyadaasi waa gaariyo Jarman oo la yaqaan waana fiican yihiin mucjiso waxa ah 1993 ilaa maanta way yaaleen rag baa ilaalinayay raggaasina waxay maanta u baahan bilad sharaf ninkii waliba magaciisa waxa la yiraahdaa ninkaas yare la yiraahdaa waxaan oran lahaa anagu dabdamis ahaan
sharaf iyo karaamaan u soo diraynaa waa idin soo qori doonaa shahaadada iyo certificate leeyahay idinkuna ninka inaad xanaanaysaan sababtoo waxa weeye ninka muwaadinka wax lagu gartaa wuxuu qabto kolkay noqoto hawshooda waa kan jananku inoo sheegay de maanta dabdamisku jananku sameeyay khayr Allah ha siiye de Soomaaliland buu anfacaya sharaf iyo karaamo berberina waa xuduntii dhaqaalaheena waa xuduntii ay lahayd